inuu jeebkiisa buuxo صح ميام وصح سمان absolute gabdhaha waxay aad u raadiyaan gabdhaha idinka sheekana mugtahay yani qof lacag leh oo ma sha Allah markii yiraahdo baatiga soo baxay waa kan waxa soo baxay dirac hebel waa kan dahabkan maanta iyo kan bari in la bedelo waayay sabta shalay lagu arkay kan kabahan ma kan soconay heblay ay aragtay ayda kaba ka sii fiican wadatay kabahan anigu ima qalmo iyo wixii la mid ah Soomaan waqti dhawaa runta sheegna aad u quruxsan wadama qaaqo gabar aayne sidoo kale yani wiil qaaqood ani ixta iimaade ay dhaheeniyo gabar waxa u baahanay maal qabeen ah yani wiil hadii ilahay gabar maal qabeen gabar qurux badan gabar maal qabeen oo guursada taasana u yahay yani sababtu maxay tahay يعني دادا جهته ujeedadaas leh ama hadafkaas leh oo ah inuu qofka hanti leeyahay ama wax uu leeyahay hal su'aal ay idin weydiinaya walaalayaal qofka xilliga uu dhashanayay ma jirtay wax xoola uu la dhashtay may madaxweynaha maanta markuu madaxweyne intuu sanaqani ka hor yani mistanaqday may dadaal iyo tacab iyo wixii mid Soomaaliya ay ku imaadeen waxaan dhihi karaa aniga dib ma ahan qof xoolo leh inaad guursatid oo adiga mas'uuliyadaada qaadi kara dib ma lah laakiin maalinta ay naqato hadaf ma gaaraysid adduunyo ma la gaara may hal qisa idinka sheekeen hadda ka hor waxaa la sheegaa miisaali ku soo qaataan yani wiilaa wuxuu jeclaaday gabar aad u helay aabihiisa u tagay wuxuu dhahay aabow gabadhaasaan ka helay iidoon wiilkii iyo aabihii yani aaba aad ba ugu farxay inuu wiilkaa ku dhaho gabar yani aan maxal dhigi jiray u baahanay iidoon wax fiican Soomaan aabihii wuxuu dhahay gabadh ay tus aan ka fiiriyo si aan maxal dhigi jiray aan kugu guuray sida dhaqankii Maxamed ay tahay aabaa gabadhii loo keenay marka uu gabadha arkay wiilkiisu fiiriyo wuxuu dhahay wiilkaygi adiga gabadhan kuma qalanto ana ii qalanta gabadhan adiga kuma qalanto qof yani waxa tahay de jeebkiisa waxaan ku jirin waxa u baahda qof yani quruxdeeda si quruxiya iftiinkaada ka si iftiin badiya ana ii qalanta wiilkii abi ya salaama ma sha Allah wiilkii abaha is dagaalay way isku dagaaleen gabadhan ku gaarsanay guursid ana ii qalantaa booliska u tageen dood kadib ninka booliska loo tagay arintii loo sheegay iyo wixii la mid ah ninka booliska markuu gabadha arkay wuxuu dhahay gabadhan ana ii qalantaa labadiinaba meeshan ka baxa waa idin xiraa meeshan ka baxa ama waa idin xiraa waa qasab waa inaad gabadhan yani ana ii qalantaa qof ilaalin kara yani markuu tuuga ay soo dhacaan oo kale ama qof markuu damco oo kale uu ka celin kara qof de booliska loo baahan yahay oo six bag leh ma leeno oo adag kadib waxa dhacay waxay tahay arinta yani saddexdooda ahayd dagaal gaashaanaha loo tagay gaashaalihii isla sidii ku jawaabay ana ii qalantaa wiilkii aabihi gaashaalaha askariga ayagoo doodaya oo dooda ay meel ay loo baxa ay laadahay kadib ayaa waxa dhacay waxay dhaheen wiilka jeclaaday wuxuu dhahay anay qalantaa aabii saasoo kale gaashaanlaha booliska waxay go'aan ku gaareen inaysan arintan qof kale uusan soo dhaxgelin saysan arinta u badan waxay is dhaheen gabadha hala weydiiyo yaa adi jacasha yaa adi ku qalmo yaa adi u baahan tahay gabadha ma dhibin meel loo ka qabsatay waxay dhahday afartiin waa ordaysaan qofkii orod badiyo anigu qaadana yaa badanaa idila tahay wiilka booliska mid maanta adinka yaa badanaa gabdhaha booliska tababar soo qaatay de uu yaqaan Soomaaliya loo ordo iyo wixii la mid ah wiilka ma badanaa yaa badanaa idila tahay
قاشا لها يا أبا على نكسب حالك يا باي أفرتوا ذوي أردن أيجو أردية وحي كل حد عين قط كذب جودها سوفيرس وحي كل هذه أنا الدنيا هو يعني وحاها الدنيا قف كستو أنيجو إرادتنا لجمع يا وقف أني إجاري كرا إلا وحأقوها يسوحيت هاي قط كاس لذلك ولا ليال هذا أوجدك دقت العك أما حاله يبيه لمده والله ويلي ما جاريسي قف كستو أو العك قول أما حاله الدنيا جاري يعني وحساب وها إنه دلالي هوينا بدن وصو جيدي سي قوشاس وقارو أديك وحد رادسا قف لذيذيو سي وأديك كافرحيو سي قف لذيذيو سي أديك أول نولاتid نول قروح بدن إيوه لمده ما قفض من تاجرين أيوة لعقته أقول سريسة محل مري هوس دعين وي خسارين ملايين دولار كخسارين إيه هو يتعيين سمعان لذلك لكن قفك لذيذيو قفك دلاليو صعونيو أق مسؤولية هذا أق يعني وحيالها أجعشهاي دناها قبانيا هدد هذه ست قفكاسي مقلب من يصابت محيطهاي دناها كرتده ولي جوغيسا رتنimada qofka ama gabadha kartideeda way joogaysaa wax ilaahay qof ku awraysa markaasi uu u shaqeysanayo wasa'a laha sa'yaha ta walabat sidaxad waxay taa kamid dadka u guursadaan nasabka ama xasabka wax loo yaqaan qofka meesha uu ka soo jeedo ama qofka uu yahay wixii la mid qabyaalad laga ma wado ujeedadu waxay tahay sharafta loo jeeda maanta qof ayaal suuq ama qof yani aan fiicneen yani sharaftiisa aan ilaa shakarin wixii la mid yani hadaad adiga raadsatid maanta sharaftaadu ku dhilaa samaan qof kasta uu jecel yahay qof fiican lagu tilmaamo hadii adiga qof aan fiicneen ama wax fiican aan lagu tilmaamo hadii aad adiga yani aad soo raadsatid maxaa dhacayo dhibaato dhacayso maanta wiilkan hooyo leeyahay aabbu leeyahay ayiyo bay u naqaynayaan ilmahaaga adigana hooyay aabbo oo kale ay ku naqanayaan culimada fiqigana waxay ka sheekeeyaan in qofka aabayaashiisu ay ka mid tahay aabaha gabadha aa ka qabtid inuu aabbo oo kale ku yahay waad xidhiidhaysaan soo maaha lidaalika waxaa loo baahan yahay waxay tahay qof fiican oo sharaf leh oo wanaagsan oo insha allahu tacaala wanaag iyo khayr nolosha u horseedi karo taa way ka mid tahay naasa muxuu dhahay walidiiniha iyo diinteeda taa waan dul istaagayaa waxya diinteeda gabadha lagu guursadaa maxaa laga wadaa taa waa su'aal qof kasto inuu isweydiiyo loo baahan yahay maanta badana marka diinta lagu guursadaa allah laakiin waa maxay diin xadiiska naasa muxuu tilmaamay waxay tahay إذا جاءكم هدو إذن يمانو حيات ممن ترضون دينه سمع قف الدين تيسا غالكتهين دي معهن دين تيسا أتغالكتهين دين تو حاليا بقول إن حجاب هيستو أما إن سيدة راتي أي نقاب هيستو يعني إسكالاف إنه قف جركة يوحل من أركي قف لما يا إنه قف كلا يوحل من ده لكن سإن أدي غالكتهين وإذا عصمان قفت أركيسا ما كان وجهيسا وحا أركي أسود صفقة كمان بحصل هذا لكن ما كان أركتid أتأذيجيسا أما الدين تيسا أعوذ بالله ليسا أسيقو دين له أسيقو صلاة دكانية زكاة سنية حاجينية يمحلم ده لكن مجرد أركتid كان يسمرنا ليسا فالدين ما له دين ناس معقوحي غي ترضون دينه وخلقه قف أترالي كتهين دين تيسا يو أخلاق ديسا ما عنده حاليا وأذيقا إن الجعشة إن وحيقول هاي قبلها أتأذك وحناق بدن وانكهلا أسيا ده واحد عيوة من كلام حول الموالنة وده قبل أتأذك وحناق بدن كهشة ها وحول أنا أسأل ده أنا أذا وجل عنه
waxa u baahnaa marka aan khalad aansan gabar ugu xanaaqays iyo wixii la mid ah wuxuu ka dantiisu ka zaman lidaalika naas muxuu dhahay taradawna khuluqa atraalikatin akhlaaqdiisa qaabka uu dhaqmayo qaabka uu soconayo ama qaabka uu dadka ula noolaanayo noloshiisu habkay u socotay wixii la raali ka tahay waa qof markaad wajigiisa aragtidbo aad ka naxaysid naas muxuu tilmaamay haweeney lagu sheekeeyay oo maalintii soonta habeenkina uu istaagtay salaatul layl laakiin diriskeeda akhlaaq dabeecad khalafsan kula dhaqantaa naas muxuu dhahay waxay tagaysaa wada xun ku sugan tahay yani wada xun ku sugan sababtu maxay tahay wax kale ma ahan ee raali ahaansho diimeed ayaa loo baahan yahay taana waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo naasam uu tilmaamay way ka mid tahay sababtu maxay tahay walaalayaal diintu taladeeda ugu muhiimsan waxay tahay diintu waa saldhiga iyo ujeedada ugu weyn naasam uu tahay fadfir diin tilmaanso oo ku dhax adag oo qabso iyo wixii la mid ah gabadha diinta leh maxay tahay ilaalinayso xiriirka Allah inta aysan ilaalin xiriirka labadiina ka dhaxeeyo iyo wixii la mid ah oo adiga aad raali ka tahay diinteeda aad ku farxaysid wixii la mid ah maanta waxa laga yaabaa inaad isguursataan wiil yani gabadha waxa laga yaabaa maanta inay Kenya joogta waxbay soo baratay jaamacad bay ka soo baxday ujeedada waxay tahay inay dadka anfacdo ay wax tarto laakiin ninkan wuxuu leeyahay maalinta ku guursado guriga ay joogaysaa diintu way gabadha inay ummadda anfacdo dib uma aragto inay maxaa la dhihi jiray ay guriga joogtane oo yani danaha ay mas'uuliyadda ay qaadataan dib uma aragto Soomaan laakiin maxaa qaldan wala waa diin Soomaan laakiin maxaa qaldan qofka ayaa ah qofka go'iiso hantida ugu weyn ninka hantiilaha ugu sareeyo maanta wuxuu rabi lahaa hanti ka sii sareysa wixii la mid ah laakiin waxaad raadisaa waxay tahay wiil yahow waxaad raadisaa gabdhahan sidoo kale qof awood u leh karti u leh inuu ku biili karo qof awood u leh karti u leh noloshan dhibaatadeeda iyo culeyskeeda iska difaaci kara oo hore u socon kara hantiile kasto ganacsade kasto aaminay qof aad isku ujeedadiin isku hadaftiin isku meel aad u socotaan oo isku diin yani isku diin aad tihiin muslimiin baa la isla yahay isku wado aad qaade diin maxaa wado waa sax la qaaday inkastoo quraan macna baa ku soo aragtay ilaa 8 macno laakiin diin waxa ka mid ah magaca yani macnaha hadii la fasiro luqad carabi aan wado la maro oo la qaado ilaa meesh kala gaarsiinayso taas waa macnaheedu insha Allah ta'ala ku soo noqon doona intaas ayaan ku simayaa inta aan mar kale ku kulmi doona insha Allah ta'ala waad ma santi jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi dibna iska fiiraa Allah wada baa iska leeyahay ya wala waa isha wali tamam